waxaan u mahadnaqayaa xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo hogaamiyo oo runtii kaalin muuqato oo muhiim ah ka qaatay xaaladda caafimaad waxaan gaar ugu mahadnaqayaa wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse Samsam wasiirka maaliyadda aad baan u badqabaa aad baan u nabad qabaa waxoogaa muddo bilaan ku maqnaa dalka Turkiga xaalad caafimaad oo cusleyn baan ugu maqnaa hoo u baahan waxba kama taro wanaga arkayna abwaankeennii qaaliga ahaa gurigiisa ugu soo booqanay maayarkii uu nala joogo golihii deegaanka oo dhan ay joogaan iyo fanaaniintii qaaliga ahayd oo Hargeysa ka timiday marka waxaan leenahay dhuga loo yeesho hadday tahay ummadda Soomaaliyeed geesaha adduunka ku nool oo dhan maalin wadduway baa laga soo celiyay qofkii kaxay lahaa tiirkiisii baa loo waayay gadabuursow markaa ninkan waa nin gadabuursi anuu cid kale la hadli maayo gadabuurso la hadlaya qurbaa jooga ninkaa loo soo gurmado haddii kalena mid walba silicaan baad ku dambayn doontaa qiimo leh shakhsi kastoo qiimo lehna taa unbuu ku dambayn doonaa